maamulka gobolka Sool ee hogaanka ciidamada militariga ee kuwa booliska ee gobolka Sool ayaa maalinkii labaad ka wada howlgallo ay ku banaynayaan sirayaal iyo goobo ay deganayeen dadka barakacyaasha iyo dadka abaartu saameysay kuwaas oo dhawaanay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa martay in la baabiyo goobahaasi iyo sirayaashaasi si aan loo deegaameyn. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayraad Dire oo hogaaminaya howlgalladan ayaa ka hadlay waxaana uu sheegay waxaan ku sugannahay magaalada Cadeey maalintii labaad anagoo qorshahaygu yahay inaan dhamaystirno hawshii qaranku noo gamaday ahayd soo raritaankii kaamamkii abaaruhu bilaabeen oo intoodii badna shalay soo rarnay xaraadiga ugu dambeysana aan maanta soo rarnay waxaan noo weheliyay inta anagoo baabiinay meelihii la calaamadsaday sida sharci darrada loo calaamadsaday laguna guray fuustooyinka iyo wixii la midka waxaa qayb weyn ka qaatay ciidamada qaranka oo ay hogaaminayaan saraakiishoodu taliyaha qaybta 11aad iyo abaanduulaha qaybta 7aad ciidamada qaranku runtii waxaan oran karnaa waa kuwa waajibaadkii loo agmaday iyo kuwa ka badanba ka soo baxay waxaad arki doontaan iyagoo gacantooda ku quufaya baabiintii calaamadii sharci darrada ah ilaahay waxaan uga baryayaa miisaanka aakhirina hay ugu daro xilka ay ummadda hayaana inuu ilaahay sharaf iyo karaamo ugu saacido waxaan u soo jeedin lahayn dadka deegaanka ku nool reer Cadeeye inay u hoggaansamaan awaamiirta inay qaataan inay u dhugunuglaadaan ciidanka qaranka ee meesha degan ee u jooga iyaga danahooda inay ka taqaanaa ay fuliyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay hawsha iyada si fiican u socotaa 85% hadda way socotaa intii harsanayna maalmaha soo socda ayaa dhamaan doontaa biidmilaahi kariim waa maalintii labaad oo halkan hawlgal u joogno ummadda deejintooda iyo kala ilaalintooda iyo beeraha xidhmooyinka iyo sharci darrada ku igman aanu tirtiraynay iyagiina waan ku guuleysano meel fiican bay noo marsaa waa noo dabayaaqo dadkiina wuu degayaa oo ka degayo muuqda si fiican bay noogu socotaa aad iyo aad baan ugu rajo weynahay inay noogu ansaxdo nabadgelyadu iyo dadka degsiimadiisu waxaan ku darayaa inta hay'adaha caalamiga ama kuwa deeqda bixiya dadka la soo ururiyay qaxootiyada meelaha lagu keenay inay si fiican ugu dadaalaan oo daryeelaan annaguna waxaan isku taxalluujinay inaanu ururino oo ay wax badan ku dhibtoono ku hawshoon oo dadku isugu yimaado meelihii muhiimka ahaa ee lagu daryeeli lahaa iyaguna inay hawsha la wareegaan oo si fiican u daryeelaan baanu ku tala bixinaynaa. Ismaaciil Haradiga Somali News TV.